soo dhawaada asxaabta. Marka aynu ka maqalno qof oraahda wado, waxa ugu horeeya ee maskaxdeena ku soo dhacaya waa wadooyinka caadiga ah ee aynu adeegsano maalin walba. Wadooyinkaas ay dad badan u arkaan inay yihiin kuwo caajis ah, kuwaas oo ku qaata ku socoshada wadooyinka waqti dheer, waxaana u sabab ah safarada joogtada ah ama shaqooyinka ka fog deegaankooda. Laakiin maanta kama hadli doono wadooyinkaasi caajiska ah. Waxaan idiin soo gudbinaynaa wadooyinka ugu waalida badan adduunka, kuwaas oo aadan weligaa sawiran lahayn in aad ku dul socoto maalin maalmaha ka mid ah. Inta aynan bilaabin, channelka maanta subscribe dheh, gambaleelkana furo, siina gaarsii asxaabtaada adiga oo share garanaya muuqaalkan. Wadada Siberia ee tagta Yakutsk. Dadka degan meeshaas waxay u yaqaanaan wadadan sidoo kale magaca ah wadada Raashiyaanka ee degdega badan kana timaada jaxiimaha. Waxayna ka bilaabmataa Moscow iyadoo ku socota Russia, kadibna waxa ay martaa qaybaha kale ee galbeedka wadankaas si ay u gaarto marka ugu dambeysa Yakutsk. Waxaana la dhameeyay sameynteeda waqti hore, iyadoona lagu dhameeyay si degdeg ah. Injineeradii iyo dadkii dhisayay ma qaadan tallaabooyinkii laasimka ahaa ee lagu diyaarinayay wadada in ay mari karaan gawaari badan, kuwaasi oo ku dul maraya xawaare sareeya. Magaalada Yakutsk waa caasimadda Siberia, iyadoona ka mid ah meelaha ugu qabowga badan waqtiga jilaalka. Waxa uuna gaaraya heerkulkeeda bisha January ilaa -40 digrii. Marka loo eego xaddiga barafka intaa la eg ee ku dhacaya ayaa ka dhigaya wadada mid adag oo iska xajin karta gawaarida, iyadoo ay gaarayaan xawaaraha gawaaridu ku dul marayaan 40 mayl saacadii. Laakiin mushkiladaha badankood waxa ay dhacaan waqtiga xagaaga, marka uu kor u kaco kuleylka qorraxda, qoyaanka dhulkana uu siyaado oo ay noqoto wadadu mid qoyan. Waxa ay ku dhex qarqoomaan gawaaridu gudaha qoyaankaasi iyo dhoobada dhexdeeda, halkaas ayayna ku xanibmaan, waxayna noqdaan kuwo aan awoodin inay ku socdaan wadadaas, waxayna sababtaa jaam badan. Markaana iyadoo ku qaata darawaliinta gawaarida in ay maraan maalmo dhowr ah wadada dhexdeeda iyagoo wajahaya kuleylka cimilada oo aad u sareeya oo gaaraya 91 digrii Fahrenheit. Wadada Zugila ee Kashmir waxaa lagu tiriyaa mid ka mid ah wadooyinka ugu ba'an uguna dabeelaha badan caalamka. Waana wado ku taala galbeedka buuraha Himalaya, waxa uuna gaaraa jooggeedu ku dhawaad 3528 mitir oo ka sareeya dusha sare ee badda. Waana jid aan hagaagsanayn oo ka dhigay darawaliinta in ay maraan meelo halis ah si ay iskaga ilaaliyaan dhibaatada. Waxa ka sii dara arrinkaas ayaa ah inaysan ku dhex qornayn wadadaas wax layman ah ama calaamado tusaya darawalka wadada saxda ah ugana digaya khatarta. Sidoo kale cimiladu ma ahan mid taagan oo way isbedeshaa. Haddii aynu eegno waqtiga jilaalka, wadada waxaa ka buuxsaman baraf oo soo daadanaya, kaas oo cabsi gelinaya dadka. Waqtiga gugana waxaa dhalaa barafkaas, waxa uuna keenaa dhoobo iyo qoyaan. Sanadii 2009 waxaa ku xanibmay 350 qof wadadan dhowr maalmood. Sababtuna waxay ahayd barafka oo ku soo dhalaalay, mana awoodo darawal inuu ku dul wado gaari. Iyadoo sidaa ah, waxayna dawladdu u ogashahay in ay ku dul wadaan gawaarida darawaliinta kuwooda ugu wanaagsan oo kaliya. Wadada James Dalton waxaa lagu sheegaa Alaska in ay tahay meesha leh wadooyinka ugu waalida badan adduunka, waxaana ka mid ah wadooyinkaasi ku dhex yaala ee aan lahayn wax la mid ah wadada James Dalton, iyada oo lagu daro wadooyinka highwayga ee laga guuray. Badanaa laguma socdo ilaa gawaarida waaweyn mooye. Waxaana la dhisay sanadii 1974 si loogu taageero tubooyinka gaaska ah ee gaara Alaska. Waxa uuna dhirirkeedu gaarayaa 413 mayl. Wadadan 80% ma ahan mid ay mari karaan gawaarida yaryarka, si dhib ah ayay ku maraan meelaha qaar. Waxa ka sii xun arrinka ayaa ah heerkulka wadadaas aad ayuu u hooseeyaa, sidaa darteed waxa uu baahan yahay darawal kasta in uu soo qaato waxyaabaha laga maarmaanka ah, maxaa yeelay waxaa suurtagal ah in uu ku xanibmo wadada dhexdeeda barafka soo daadanaya awgiis. Los Caracoles, dalka Chile, waxay isku xirtaa xuduudda u dhaxaysa dawladaha Argentine iyo Chile, wuxuuna gaaraa dhirirka xuduudaasi 8,000 kilomitir. Waxayna leedahay xuduudaasi wadooyin kala duwan oo uu adag yahay maritaankooda. Waxaana ugu yaab badan ee laga helo labada wadanba waa wadada wareegsan oo sidoo kale loo yaqaano Paso de los Libertadores, wuxuuna gaaraa jooggeedu 3,207 mitir. Waxaana la sheegaa inay tahay wadada ugu leexleexadka badan, iyadoo ay suuragal tahay gawaarida ku dul socda in ay dhacaan waqti walba. Dhab ahaantii sanad walba waxaa kordha tirada gawaarida ku qalibma ama ku gadooma wadadaas. Buundada 7 mayl waxay ku taalaa buundadan gobolka Florida, waxaana lagu tiriyaa buundooyinka ugu layaabka badan ee ku yaala Mareykanka. Wuxuuna gaarayaa dhirirka buundadan 7 mayl.
waxayna ku dhex samaysan tahay biyaha dhexdooda, waxaana lagu tiriyaa buundooyinka ugu dheer ee adduunka ku yaala. waxaana la dhisay muddadii u dhaxaysay sanadii 1978 ilaa 1982, waxayna ka soo dhex muuqatay buundadan filmaan caan ah, waxayna ku dhex taallaa badda Florida. buundada webiga Sido waxay ku taallaa China, waxaana loo furay in ay gawaaridu marto sanadii 2009. ilaa waqtigaasna waxaa loo aqoonsan yahay buundada ugu dheer adduunka, iyadoona uu gaarayo jooggeeda ku dhawaad 500 oo mitir ka sareynta badda dusheeda. taasina waxay ka turjumaysaa haddii uu qof ka soo dhaco, waxa uu ku soo dhacayaa xawaare aad u sareeya. marka la eego dhirirkeeda, waa mid ay mararka qaar ku hareeraysan yihiin daruuro, sidaa darteed waxaa adkaata aragtida, waxayna keentaa inay dhacaan shilal sanad walba. buundada Milo Viaduct. haddii aad isweydiinayso buundadee ayay ahayd buundadii ugu dheereed adduunka ka hor buundada webiga Sido ee aan kor ku soo sheegnay, waxay ahayd buundada Milo ee weyn. dhirirkeedu waxa uu gaarayay 2450 mitir, halka uu jooggeedu ahaa 343 mitir, waxaana ku baxday dhisideedu ku dhawaad 450 milyan. waana mid aad u cabsi badan marka loo eego dhirirkeeda, waana mid ay ku wareegsan yihiin daruuro xilliga jilaalka. buundada Royal George ee Mareykanka waxaa lagu tiriyaa buundadan meelaha ugu waaweyn ee loo dalxiis tago magaalada Canyon ee waddanka Mareykanka, waxaana la furay sanadii 1929, waxayna haysatay magaca ah buundada ugu weyn caalamka ilaa 2003, waxa uuna gaarayay jooggeeda 320 mitir. iyadoo ay jiraan buundooyin kale oo ka dhaadheer, haddana waxa ay leedahay astaamo u gaar ah. waxayna leedahay webi ka hooseeya, kaas oo ku kalifaya dalxiisyaal badan in ay tagaan, gaar ahaan kuwa jecel ciyaaraha la iska soo tuuraya meelaha dhaadheer. waxyaabaha khatarta ee buundadan leedahay waxaa ka mid ah in sagxaddeeda ay ka samaysan tahay taarar birar ah oo ay dul saaran yihiin alwaax. sidaa darteed marka uu gaari kor marayo, waxaa dhaca gariir weyn oo uu u malaynayo qofka dul saaran buundada in ay dumayso. wadada 52 god ee Talyaaniga. waxa uu ahaa aasaasidda wadadan lagu magacaabo wadada 52 god ee Talyaaniga, aasaasid cajiib ah marka laga eego sida loo dhisay. waxaana dhamaystirmay asaaskeedii waqtigii boqortooyada Talyaaniga, waxaana ka qayb qaatay samaynta wadadan dad badan, iyagoo aaminsanaa muhiimadda ay leedahay in la isku xiro magaalooyin kala duwan ee Talyaaniga. waxayna isku xirtaa in badan oo magaalooyin ah, iyadoona isku soo dhaweysay. waxaana la bilaabay samaynteeda February 1917, wuxuuna dhammaaday bishii November isla sanadkaas. waxayna caan ku noqotay in ay tahay qaab godad oo kale ah, laakiin waa mid aan u qaabaysnayn in ay ku socdaan gawaarida, iyadoo ay suuragal tahay in ay godadku dumaan waqti kasta marka loo eego cimrigooda dheer. waxaa kaloo suuragal ah marka aad ku soconayso inuu kugu soo dhaco dhagax weyn. sidaa darteed waxa ay ka mid noqotay wadooyinka ugu khatarta badan adduunka. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahayna channelka subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin inaad la wadaagto asxaabtaada adiga oo sheer garinaya muuqaalkan. mahadsanidin.